kusoo dhawaada barnaamijkeennii cunno karinta anigoo ah sheef cabdicasiis caawa waxaa idiin soo bandhigayaa habka wacan ee loo suubiyo suqaar gaduudka cunnada qaarna waa Soomaaliyeeyay qaarna waxaan u bixiyay magacyo Soomaali ah si aad maaragtay cunnadii naftigiina ay idiin kala saaro maaragtay ay magacyaal maaragtay u yeelato suqaarka nooca aan suubinayo waxa weeye waa very spicy waa suqaar gaduud oo aan ku darayo carfiyaal sage iyo rosmarino waxaan kaloo aan ku darayaa in yaroo kabsar caleene waxaan ku darayaa in yaroo butter waxaan ku darayaa yaanyo shiishiid waxaan ku darayaa basal waxa aan suubiyay saa hadda halkan uga jeedaan digsigan waxa ku karaya suqaarkii ayaan hal bakeeri biyo ah ku karkariyay nooca aan suubinayo maaragtay suqaarkan aan karinayo waxa weeye suqaarka dhacankiisa ayaan ku kariyay inoo jilco kadibna waa ka miirayaa markaan suqaarkii aan miiro sooskiisana dhinac baan u baxsanayaa carfiyaashii spiceska ayaan waxaan ku shiilanayaa suqaarkii sooskiisana waxaan u subsanayaa maaragtay separate gooni suqaarka waxa uu kaloo ka kooban yahay in yar oo maaragtay yaanyo gaduud ah mustard oo maaragtay hal qaado ee mustard sauce kabsar waxyaro kabsar caleene hal qaado oo butter hal qaado oo sour cream iyo basal intaas ayuu ka kooban yahay waxaan kaloo aan ku darayaa basbaas gaduud oo ujeedaan hal basbaas oo gaduudan oo jarjaray hadduu ilaahay ku ron yahay powdered oo maaragtay onion iyo powdered maaragtay oo garlic hal qaado oo cusbe ah oo ku daray powdered lemon oo powder ah oo waxba lahayn iyo waxaan kaloo ku darayaa rosmarino aad u jeedaan in yaroo rosmarino ah iyo carfiyaha nooca loo yaqaano sage waxaan dhinaca kale aan side dish kaga dhigayaa basal yar oo aan maaragtay dabka ku shiilayo shagax ku siinayo kadibna aan dusha kaga darayo oliivkii hadda waxaan isku qasanayaa basashii kabsar caleentii yaanyo shiishiidkii butterkii hal qaado sour cream iyo mustard sauce intaas ayaan isku qasayaa wax kale ku darimayo waa ujeedaan si fiican aan u qasayaa basasha waxaan ka dhigay very thin oo aan xoogaa dheereeyay si maaragtay qurux suqaarkii u siiso waa ujeedaan waxyaroo rosmarine ayaan ku darayaa carfiyaha loo yaqaano rosmarine waa sida reexaantii oo kale waxaan kaloo ku darayaa carfiyaha nooca sageka loo yaqaano waxaan ku darayaa powdered onion iyo powdered garlic iyo basbaaski waxaan kaloo ku darayaa in yaroo saliide waa isku qasayaa digsi ayaan waxaan ku shubanayaa wax yaroo saliide ujeedaan wax yaroo saliide hal qaad iyo baroo saliide suqaarka waa shiilayaa ilaa uu ka guduto oo dhacankiisii intay ka baxaan suqaarkii waa dhameeyey woo karay maraqii dhacankii woo ka baxay wax kale suqaar ku darimayo waa walaaqayaa un dabkana waa ka qaadayaa ayaan waxaan ku shubtay digsi waxaan ku darayaa dhowr xabo rosmarine kadibna waxaan ku darayaa basal yaro basal aan ku daray waan ku walaaqayaa walaaqayaa oo ujeedaan si fiican baan kugu walaaqayaa waxaan kaloo dusha kaga darayaa
دعانكي إيجا صهري إن سقارك وفيها مركان كوك كرنا يهدايت وجدا حيرا قدري وعن كلو قدريا لبقى دو بره أقوى لا غير روزمارينا دي بسشي إن برركي iyo nusqaada yar oo cusbo aan ku daray ayaan isla karinayaa kadibna waxaan ku darayaa wax yar oo Worcester sauce oo jeeda Worcester sauce awayr sidana yar siiso inta way wax kale ku darimay qaarkii waa dhameeyay marka hadda waa presentationkiisa iyo qurxintii صوصك وكرنايا إلا أو كسيفي عن أكره وكيراده وصوصك عن ريدكشن عن كديجو إلا يصدح قاده صوصك مركو أو يراده ونصدح قاده عن كديجو كدبنا وح عن سوق قادنا يا سحني سئسلك أيام وحن وشو بيا سحنيجي سقاركي عن كري سقاركي سحنيجي أيام وشو بيا waxaan dhexda aan ka dhigayaa waan side dish kaga dhigayaa olive-ki ama zaytuunka si carabta u yaqaanaan ayaan dhinac ka dhigayaa waan waxiro basal aan ku daray waxiro basal ciidin aan ku daro dhexda aan ka dhigay ayaan dhinac ka dhigayaa suqaarka suqaarkii waxaan ku qorxiyay waan maaragtay dhinac ka dhigay olive-ki haddana sauce-kii aan yareeyay waan reduction sauce-kiisii aan ka dhigay ilaa iyo 2 qaado sauce-kii markoo yaraado ayaan sauce-kii basashii butterkii Worcester sauce-kii aan isku karkariyay markay yaraadaan way gursadaan oo 2 qaado oo noqdo suqaarka ayaan dhinac ka dhigayaa waan ku qorxinayaa ayadana side dish ayaan kaga dhigayaa suqaarka waxaan kaloo dusha kaga darayaa waan ku qorxinayaa rosmarino ama rosemary sida loo yaqaano ayaa dusha maaragtay aan kaga darayaa ku qorxinaya suqaarkii waa u jeedaan waa dhameeyay aad iyo aad u qurxoon yahay anigoo ah Sheekh Cabdilcasiis Dhicis inta aan ku kulmi doono barnaamijkani barnaamij la mid ah waxaan idin leeyahay amaana Allah amaana rasuul wiiga dambe waxaan soo qaadan doonaa haddii Allah idmo barnaamij kale oo aad iyo aad u wanaagsan aadna u qurxoon cunada suqaarka caawa idin suubiyo ama idin suubinayo wuxuu ku fiican yahay haddaad joogtaan meelaha qaboobaha oo maaragtay barafka iyo wax leh suqaarku waa very spicy wana kulul yahay marka barnaamijkaygu wuxuu noqon doonaa barnaamij aad iyo aad taxano u anigoo ah Sheekh Cabdilcasiis Dhicis waxaan idin leeyahay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah aad iyo aad baad u mahadsantihiin